magaalada Garowe ee xarunta maamul dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhex maray ciidamada dawlad goboleedka Puntland iyo ciidamo taageersan siyaasiyiinta mucaaradka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Israa'iiliyiinta ugu baaqay inay joojiyaan dhismayaasha sharci darrada ah ee ay ka wadaan dhulka Falastiiniyiinta. qaar ka mid ah wadamada deeq-bixiyaasha ayaa sameeyay ballanqaad dhaqaale oo gaaraya 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. dhaqaalahaas oo ay sheegeen inay ku bixin doonaan gurmadka degdega iyo arrimaha samafalka loogu talagalay dadka ka soo qaxay ama ka soo barakacay dagaalka wadanka Suudaan. qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu kuga haynaa warkeena hadii ee beedmo. way hadda wadayaal ku soo dhawaada wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa dabadiisa oo akhri anuga Maxamed Saciid Saxaaf. aan ku bilaabay wararka naga soo gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamul dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay in uu dagaal ka dhacay bartamaha magaalada Garowe. dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada dawlad goboleedka Puntland iyo ciidamo taageersan siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda siyaasadda Saciid Cabdillaahi Dani madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. dagaalka ayaa salka ku haya kala aragti duwanaan siyaasadeed oo la xiriirta furitaanka dastuurka iyo wax ka bedel lagu sameeyo qodob ku saabsan tirada ururada siyaasadda ee u gudbi kara ama noqon kara xisbi siyaasadeed. wararka ka imaanaya magaalada Garowe ayaa sidoo kale sheegaya in dagaalku uu sababay khasaaro naf iyo maal leh intaba, isla markaana uu saameeyay xaafadaha kala gedisan ee ku yaala magaalada Garowe. wali lama hubo tirada saxda ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay dagaalka ama khasaaraha maal ee uu geystay dagaalku, balse waxaa la arkayay sawirada iyo muuqaalada ciidamada dagaalamayay oo ku dhex dagaalamaya xaafado kala gedisan oo ku yaala magaalada Garowe. hadba wixii warar oo ku soo kordha xaaladda magaalada Garowe waxaan idin kula socodsiin doonaa wararkeena dambe hadii ay beedmo. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Israa'iiliyiinta ugu baaqay inay joojiyaan dhismayaasha sharci darrada ee ay ka wadaan dhulka Falastiiniyiinta. xogayaha ayaa sheegay in dhismayaasha sharci darrada ee ay Israa'iiliyiintu ka wadaan dhulka Falastiiniyiinta inay dhalinayaan rabshadaha iyo dhibaatooyinka jira, isla markaana ay caqabad ku yihiin helitaanka nabad waarta oo la gaaro. hadalka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa imaanaya maalin kadib markii ay ciidamada Israa'iiliyiintu ay magaalada Jenin ee dhanka daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ay ka fuliyeen howlgal ciidan. howlgalkaas oo ay ku dileen 5 qof, dhammaantoodna ahaa dad Falastiiniyiin ah oo ku noolaa xeryaha ku yaala magaalada Jenin ee daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta. qaar ka mid ah wadamada deeq-bixiyaasha ayaa sameeyay ballanqaad dhaqaale oo gaaraya 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. dhaqaalahaas oo ay sheegeen inay ku bixin doonaan gurmadka degdega iyo arrimaha samafalka ee loogu talagalay dadka ka soo qaxay ama ka soo barakacay dagaalka dalka Suudaan. ballanqaadkan dhaqaale ayaa ku soo beegmaya xilli ay ka sii darayso xaaladda bini'aadanimo iyo midda amni ee wadanka Suudaan, iyadoo ay jiraan boqolaal qoys oo maalin walba ka qaxa ama ka barakaca deegaanadii ay ku noolaayeen, taas oo sii kordhinaysa baahida jirta iyo gurmad la'aanta baahsan ee ka jirta deegaanada ay dagaaladu saameeyeen. dagaalka dalka Suudaan ayaa bilowday bartamihii bishii Abriil ee sanadkan 2023 wuxuuna u dhaxeeyaa ciidamada militariga ee dalka Suudaan iyo kuwa gurmadka degdega ah oo isku haya talada iyo jihaynta siyaasadda wadanka Suudaan. mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee dalka Suudaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 3,000 oo qof inta imika la og yahay, ayna ku dhaawacmeen tiro dad gaaraysa 6,000 oo qof oo kale oo intooda ugu badan ay yihiin dad shacab ah. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawateen warkeena maanta. waxaan idin la socodsiinaya anigu Maxamed Saciid Saxaaf. intaanu ku kulmayna warkan warkiisa xiga waa bahda wararka oo isku duuban oo kaga tagay meel baad caalamka joogtaan. sidaas iyo nabadgelyo.